kulan wacan dhegeyste kusoo dhawaada barnaamijkeennii talada dhibiga oo aan idinkugu soo gudbino idaacaddeenna Hirsamo. barnaamijka talada dhibiga waxaan kusoo bandhignaa arrimaha caafimaadka iyadoo talo laga siinayo qofka dhiban ee dhibaha ah islamarkaana xanuunka hayo iyadoo loo sheegayo hadba xanuunada qaar. barnaamijka waxaa lagu soo qaataa cudurrada halista iyo waxaa kaloo lagu soo qaataa in waxyaabaha iyo sida looga hortagi karo cudurka markaasi laga hadlayo waana talo caafimaad. barnaamijka waxaad ka dhegeysan kartaan idaacadda Hirsamo. barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa ina saameynta uu ku leeyahay cudurka xasaasiyadda loo yaqaano ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena talada dhibiga ood kala socotaan idaacaddeenna Hirsamo. xasaasiyadda waa jawaab aan caadi ahayn oo uu dhiibo difaaca jirka. dadka qaba xasaasiyad difaaca jirkooda wuxuu inta ficilin ku sameeyaa walxa aan dhib lahayn oo laga helo jawiga ama deegaanka. walxahan aan dhibka lahayn waxaa ka mid ah manka, caaryada iyo dufta xayawaanada, waxaana loo yaqaanaa allergen. xasaasiyadda waa dhibaato caan ah oo saameeya dad badan. maxaa dhaca xilliga uu jiro falgal xasaasiyadeed? marka ugu horreysa qofka wuxuu neef ahaan u qaataa ama uu u liqaa ama maqaarka qofka waxaa taabta xasaasiyad kiciyaal ka dhaca gudaha difaaca jirka. dhacdooyin taxane ah kuwaasoo sababa falgal xasaasiyadeed. jirku wuxuu bilaabaa inuu soo deeyo borotiin qaas ah oo loo yaqaano ige oo ku dhiga walxaha xasaasiyad kiciyaasha ah. borotiinka ige wuxuu ku dhigaa unugyada dhiigga unug ka mid ah oo loo yaqaana masti. unugyada masti ayaa waxaa laga helaa hawamareenka iyo dheefshiidka. borotiinka ige ayaa kula dhejiya in xasaasiyad kiciyaasha unugyada masti, taasoo sababaysa in unugyada masti ay dhiigga ku sii daayaan kiimikooyin kala duwan sida kiimikada histamine oo ah midka ugu weyn waana midda sababta calaamada ugu badan ee ka dhasha falgalka xasaasiyadda. waa maxay hadda astaamaha in xasaasiyadda? cuncun ama indhaha oo ilmeeya, hindhisyo, sanka oo dareera, dareen daal badan ama xanuun finan. darnaanta falgal xasaasiyadda ayaa aad u kala duwan, waxaana jira calaamado khafiif ah oo aadan inta badan dareemayn iyo calaamad dhexdhexaad ah oo aad dareemi kartid sida hargabka oo kale. calaamada daran oo aad raaxada kaaga qaadi kara. calaamadaha falgalka xasaasiyadda iyo istaaga waxyar kadib marka ay meesha ka baxaan xasaasiyad kiciyaasha. falgalka xasaasiyadda ugu daran waxaa loo yaqaanaa anaphylaxis ama anaphylaxis tolib, waxaana jirka oo dhan ka dhaca falgal weyn oo ku aadan xasaasiyad kiciyaasha. anaphylaxis waa xaalad caafimaad oo halis una baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah sababtoo ah calaamadaha anaphylaxis in si degdeg ah ayay u sababi karaan dhimasho. qof kasto xasaasiyad ma ku dhacdaa? maya, laakiin dadka qaar waxay u nugul yihiin inay ka dhaxlaan waalidkooda si hiba ahaan ah ama si hidda ahaan ah. haddii hal waalid uu qabo xasaasiyad, cunuga wuxuu halis ugu jiraa 50% haddii ay qabaan labada waalid wuxuu halis ugu jiraa 75% inuu xasaasiyad ay ku dhacdo ilmaha waalidkaas. xasaasiyaddu waxay ka mid tahay xaaladaha aan dawada lahayn, waxaana muhiim ah in qofka xasaasiyad inuu si fiican uga hortago wax kasta oo sababi kara xasaasiyad kiciyaal sida busta,
manka iyo wixii kaloo la halmaala. Sida ugu wanaagsan uu qofka ku xaqiijiyo inuusan dareemin calaamadda xasaasiyadda, waxaa muhiim ah in qofka uu aqoon buuxda u leeyahay waxyaabaha kicin kara xasaasiyaddiisa, uuna sameeyo tallaabooyin uu ku yareyn karo amaba uu kaga saari karo guriga ama goobaha shaqada. Tusaale ahaan, qofka xasaasiyadda in ku qaba busta, waxaa muhiim ah inuu mar walba daryeelo nadaafadda guriga iyo goobta shaqada. Qofka ku qaba xasaasiyad udgoonka barfuunada, waxaa muhiim ah inuu yareeyo ama ka fogaado barfuunada. barnaamijka talada dhibiga waxaan ku soo bandhignaa arrimaha caafimaadka iyadoo talo laga siinayo qofka dhiban ee dhibaha ah islamarkaana xanuunka hayo iyadoo loo sheegayo hadba xanuunada qaar. barnaamijka waxaa lagu soo qaataa cudurrada halista iyo waxaa kaloo lagu soo qaataa in waxyaabaha iyo sida loogu hortagi karo cudurka markaasi laga hadlayo. waana talo caafimaad. barnaamijka waxaad ka dhegeysan kartaan idaacadda Hirsamo. dhegeystayaal, halkani waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii talada dhibiga oon maanta aan ku soo qaadanay saameynta cudurka xasaasiyadda uu ku leeyahay bulshada, islamarkaana sida loogu hortagi karo iyo waxyaabaha keena xasaasiyadda. intaynu dib u kulmi doono barnaamij caynkan oo kaleeto, waa Bahda Hirsamo oo idin leh ammaano Allah. talada caafimaadka barnaamijka aad